halkan waa janaalkeena badweynta yub saaxiibyaal kulanti wacan wanaagsan meel kasta aad joogtaan u diyaar garoob inaad daawataan wararkii ugu waaweynaa Soomaaliya caalamka intiisa kale qodobada wararka ugu waaweyn waqtigan waxaa kamid ah 22 qof ayaa weli lagu leeyahay nolol iyo geeri midkoodna qarxi ka dhacay caasimada gaaraan Control of Goy baadigoobka dadkaas oo ka soconaya magaalada Muqdisho iyo warbixin gaar ah kaga haya Qatar iyo Turkiga waxay ku loolayaan daryeelka Soomaaliya iyo diyaarado ku soo wajaha Muqdisho oo weli dad gureynaya dhaawacyada halista ee ka dhashay qarxi ka dhacay Muqdisho madaxweyne Farmaajo sabab la yaab leh darteed ayuu markan ugu guuriyay madaxtooyada qaranka waa maxay sababtu Shariif Sheekh Axmedna waxa weerar afka ku qaaday madaxtooyada iyo waliba fashil uu muujiyay oo ku saabsan hay'adaha dawladda xildhibaan ku guuleystay in maqaaxidiisa oo ka horleexiyo baraha kontarool ee laga ilaaliyo madaxtooyada qaranka wararkii ugu dambeeyay gobolka Mudug oo dagaale ay maanta ka socdaan qodobadaas kuma kale ya qaybka wararka maanta daawado tar kamina saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe ee gambalelkana taabo si ay kugu soo dhacaan wararka iyo waliba warbixinada gaarka halkan aan soo gelino waxaan ka hormari doonaa musiibadii ka dhacday caasimada Soomaaliya Muqdisho wali waa laga dareemayaa caasimada waxaana nolol iyo geeri toona lagu leeyahay 22 qof kuwaas oo laga baadigoobayo meesha qarxu ka dhacay waliba isbitaalada waaweyn si ay ehelada ay u helaan dadkaas ka maqan guddiga kormeer waa guddiga gurmadka holaha ee tirakoobka dadkii waxyeelada ka soo gaartay qarxi ka dhacay sabtida Control of Goy ayaa waxa ay soo bandhigeen in 25 qof ay la laayahay oo aan lagu haynin nolol iyo geeri midna saraakiishan guddigan oo warbaahinta kula hadlay Muqdisho waxa ay sheegay in 22 kamid ah ay la laayahay halka 3 kamid ah mar dambe oo xali ahaa meedadkoodii la helay dadka maqan ayaa waxa kamid ah 8 caruura 6 kamid ah ay yihiin dad waa 6 kamid ah ay yihiin dhalinyaro marka waxbarasho u socotay sarkaal u hadlay guddigan waxa uu sheegay in 5 qof nolol lagu helay qofna uu dhintay marka inta laga reebana wali la leeyahay 20 qof oo aan nolol geeri midna aan lagu hayn waxa uu sarkaalkan guddiga ka tirsan uu sheegay in isbitaalada waaweyn ee Muqdisho ay ka baadigoobayaan meydadkan inkastoo uu sheegay meedadka qaarkood la aqoonsan waayo waana sababta keentay in la baadigoobo dadkan qarxi ka dhacay caasimada ayaa noqonaya qarxi saddexaad ee ka dhaca Muqdisho oo ah kii ugu dhimashada badnaa abad ee ka dhaca caasimada dad badan ayaana waxyeelay ka soo gaartay tirada dhaawaca ah waxa lagu qiyaasay inay gaarayaan 150 qof kuwaas oo la dhigay isbitaalada waaweyn magaalada Muqdisho marka laga reebo 16 kamid ah oo bukaano halis ah xaaladooda dalka wax looga qabo loo qaaday Turkiga inkastoo 16 kaasna mid kamid ah ay dhimatay oo haweeneyday 15 qof hadda lagu dabiibayo Turkiga laka kale aan eega dalalka Turkiga iyo Qatar waxay ku loolayaan daryeelka dadkii ku dhaawacmay ee qarxi ka dhacay caasimada diyaarada ayaa wali daabulaya dhaawacyada halista magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya maanta Isniin ah waxa lagu wadaa saacadaha soo socda inay soo gaaraan diyaarad laga leeyahay dalka Qatar diyaaradan Qatar ayaa u qaadi doonta qaar kamid ah dadkii ku dhaawacmay qarxi ka dhacay isgoyska Control of Goy Muqdisho waxaana soconaya u diyaar garowga ugu dambeeyay ee lagu qaadi lahaa dadkaasi sidoo kale guddiga gurmadka degdega ah oo ay dawladdu u xilsaartay qarxi Control ayaa waxay ku hoolayeen sida ay u kala saari lahaayeen dadka qaba dhaawacyada culus ee u baahan in dalka dibadiisa caafimaad ahaan looga qaado dalka Turkiga shalay waxa loo qaaday 16 ruux oo mid ay xalay goor dambe ku dhimatay haweeneyda kuwaas oo qabay dhaawacyo culus magaalada Ankara ayaa xalay goor dambe laga dajiyay diyaaradii shalay ka qaaday magaalada Muqdisho waxaana la dhigay isbitaalada waaweyn ee Ankara ku yaala waxa kale isla xalay daryeel caafimaad loo fidiyay dadkaas oo Turkiga la geeyay oo hadda qaarkood la sheegayo in xaaladoodu aad u soo fiicnaanayso tirada dhimashada qarxi ka dhacay Control of Goy magaalada Muqdisho ayaa waxa hadda kor u dhaafaysa 88 ruux oo ah dad u badan shacab halka dhaawacana ay gaarayo 50 waa 150 qof oo kamid ah dadkii ku dhaawacmay kuwaas oo baxnaanintooda iyo dawadeeda wali ay socoto Turkiga iyo Qatar ayaa labada dal ee hadda dawladda Soomaaliya ka caabinaya daryeelka caafimaad ee loo fidanayo dadka ay waxyeelada ka soo gaartay qarxi ka dhacay caasimada wararka kale ayaan u gudbinaa qodobada ka hare Shariif Sheekh Axmed waxa uu warar afka ku qaday madaxtooyada qaranka fashil ayaa dhex fadhiyay ayuu yiri madaxda qaranka waxayna ku guuldareysan xasilinta amaanka
madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarkeeda Shariif Sheekh Axmed ayaa dhaleeceyn u soo jeediyay madaxda dowladda. Shariif Sheekh Axmed ayaa si cad u sheegay in dowladda federaalka ay ku fashilantay sugidda amniga magaalada Muqdisho isla markaana ay gabtay mas'uuliyadii loo igmaday. Waxa uu sheegay in madaxda dowladda Soomaaliya ay ku fashilmeen sugidda ammaanka magaalada Muqdisho taasina ay fududeysay in shabaab qaraxyo maalin cad ay ka geystaan caasimadda. marka la isku daro qaraxan iyo kiizobe inta ku dhimatay iyo inta ku dhaawacantay waxa ay muujinaysaa dayacnaanta amniga caasimadda ayuu yiri iyo in dowladda Soomaaliya aysan korba iska saarin ammaanka dadka ku nool caasimadda. Icos control waxa ku yaalay xarun lagu qaado canshuuraha dalka. Waxa uu sheegay Shariif in lacagaha dadka laga qaado xitaa la doonayay in shabaab loo gacan galiyo. Ku dhawaad 80 qof ayaa dhimatay, tiro intaa ka badan oo 150 ruux ayaa dhaawacantay. waxaana geeri in lagu leeyahay 25 qof oo maqan qaraxii ka dhacay Sabtida. qaraxii ka dhacay Icos control waxa uu sababay khasaare lixaad la isugu jira dhimasho dhaawac. ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi, laakiin Shariif Sheekh Axmed ayaa ku eedeynaya madaxda dowladda inay dayaceen mas'uuliyadda amniga caasimadda. wararkeena kale waxaa qayb ka ah madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo ayaa si la yaab leh markan ugu guuraya Villa Soomaaliya saan helnay xog cusub. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa inuu u guuro wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya muddo 7 ah kadib halkaan kula kulmi doono saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda. sida wararkan ku helino madaxweyne Farmaajo ayaa damacsan inuu isbedel ballaaran uu ku sameeyo habdhaqanka ciidanka saraakiisha iyo waliba dardargelinta dagaalka ka dhanka ah al-shabaab. inkastoo kooxda al-shabaab aysan sheegan haddana 18 bishan wax magaalada Muqdisho ka dhacay qaraxii ugu khasaaraha badnaa abid waa qaraxii ugu khasaaraha badnaa kana mid ah qaraxii saddexaad ee khasaaraha badan dhaliyay Soomaaliya ka dhacay muddo 2 sano gudahood taasoo tusinaysa ama muujinaysa ficilada guracan ee al-shabaab. madaxweyne Farmaajo ayaa damacsan in howlaha ool maalmeedkiisa caadiga uu ku qabsado gudaha wasaaradda gaashaandhigga, waana markii labaad ee la tilmaamay in madaxweynuhu u guuri doono halkaasi si uu dardargeliyo qorshaha dagaalka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhaleeceyn xoog kala kulantay mucaaradka kadib markii lagu eedeeyay in ay dayaceen mas'uuliyadda loo igmaday difaaca dalka iyo dadka, waana sababta keentay in mar walba dad badan ay iskaga dhintaan qaraxyada ka dhacay caasimadda. waxaa la sheegayaa in dadka dhintay ay u badan kuwa bilaa xisaab la'aan iskaga dhintay dayacaadaasna ay qaadanayso sida warbixinada lagu sheegay dowladda federaalka ee Soomaaliya. wararkeena kale ayaan u gudbi doonaa ee xog culus oo ku saabsan xildhibaan ku guuleystay in maqaaxidiisa laga hor leexiyo kontaroolada laga ilaaliyo ammaanka madaxtooyada qaranka. xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa ku guuleystay in maqaaxid uu leeyahay uu ka hor leexiyo mid ka mid ah kontaroolada laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya. kontaroolkan oo ku yaala agagaarka Xawtaako ayaa dhagaxaantiisa la dhigay kasoo horjeedka maqaaxida Blue Sky ee uu leeyahay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka kaas oo go'aansaday inaan magaciisa halkaan ku baahin. xildhibaankan ayaa muddo madaxtooyada Soomaaliya dacwadiisa tiilay ugu dambeyn ku guulaysan kontaroolada laga qaado maadaama maqaaxidiisa ay hor yaalaan kontaroolkan taasna ay caqabad ku tahay ganacsigiisa. kadib waxa la garwaaqsaday in guud ahaan bar laga hor leexiyo kontaroolada ee laga ilaaliyo madaxtooyada si ay u socoto shaqada maqaaxida oo xildhibaankan uu leeyahay. inkastoo xildhibaanka laga hor qaaday ayaa haddana ciidamada ay kontaroolada hor dhigeen maqaaxid kale oo ku dhagan oo uu leeyahay qof shacab ah. marka laga hor leexiyay barta control ninkan xildhibaanka ah ayaa waxa controlkaas la dhigay ama isla bar kale oo maqaaxi ah qof shacab ah leeyahay. qofka shacabka oo la hadlay waxa uu yiri oo milkiilaha maqaaxida ayaa yiri aniga xildhibaan miihi wax walba waan sameeyay waa laga qaadi waayay mana jirto cadaalad waxa wadankan ka jirta cadaalad darro. xildhibaan ayaa laga soo hor leexiyay bartan aniga maqaaxida ayaa la hor dhigay anigana awood u mali inaan iska qaado ayuu yiri milkiilaha maqaaxidan oo la hor dhigay kontaroolada laga ilaaliyo ammaanka. waxaana ay inta badan kontarooladan ay kuwa al-shabaab ee baagsadaan waana sababta ay ugu baqayaan in maqaaxidooda waliba hantidooda halka ay geliyeen ay burbur xooggan ay soo gaarto. wixii ka dambeeyay weerarkii horaantii bisha lagu qaaday hotelka Israel waxa magaalada Muqdisho aad loo adkeeyay ammaanka wadooyinka gala madaxtooyada Soomaaliya waxaana la kordhiyay kontaroolada laga ilaaliyo ammaanka waana sababta keentay in xildhibaankan maqaaxida uu lahaa uu qaylo dhan xooggan ka keeno taas oo loo aaneyn karo
in ugu dambeysay uu ku guuleystay in controolka ka soo horleexiyay maqaaxidiisana laga soo qaado laakiin waxaa la dhigay maqaaxi kale oo ay darsiin oo weli kama foga dhibaatada ka dhalata haddii halka ay al-shabaab ay beegsadaan wararka kale waxaa ku jira saaxiibayaal wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka dhacay mudug ayaan eegaynaa halkaas waxaa lasoo sheegayaa in dagaal mar kale uu ka dhacay inta la xaqiijiyay 2 ruux ayaa ku guriyootay halka hal ruux oo kalena dhaawac uu soo gaaray maleeshiyada hubeysan ayaa saaka isku rasaasay bartamaha deegaanka Wisil oo dhaca koonfurta gobolka mudug dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa isugu jira dad shacab ah iyo maleeshiyadkii dagaalamay dadka deegaanka ayaa sheegaya inay soo kala dhax galeen waa dadka deegaanka waxay sheegay in uu soo kala dhax galay khilaaf labada maleeshiyo halka dagaalantay taana ay sabab u noqotay dagaalka wararka la helay deegaanka Wisil ee gobolka mudug waxa ay inta ay ku darayaan in odayaasha waxgaradka deegaankan ay kala dhax galeen maleeshiyadkii ku dagaalamay halkaasi xaaladuna tahay mid aad u degan inta uu socday dagaalkan waxaa hakad galay isku socodka gaadiidka ganacsiga balse hadda mar kale ay dib u bilaabatay markii ay joogsatay xabadda maleeshiyadkan ku dagaalamaya Wisil ayaa kuba hubeysan deegaan ahaan ka soo jeeda halka dirirtu ay ka dhacayso ciidanka dawladda Soomaaliya dhawaan waxay ku guuleysteen in la kala dhax galo maleeshiyad ku dagaalamay magaalada Gaalkacyo koonfurteeda oo ugu dambeyn la kala qaaday laakiin Gaalkacyo ayaa muddo markan ama guud ahaan gobolka mudug ayaa muddo in markan ay la dageen dagaalada dhanka qabaa'ilka ku saabsan oo maalmihii dambe ay noqotay mid joogto ah oo halka ay kaga dhacayeen guud ahaan wararkaad ka daawanaysan janaalkeena badweyn tube saaxiib yaal wanaga inta